طائفة المنصور. soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena waxaanu kaga hadlaynaa kooxu nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu inoo sii sheegay in ay soo bixi doonto wakhtiga uu islaamku u qaybsamo 73 kooxood kuwaas oo dhammaantood naarta geli doona mid mooyaane kooxdaas oo ah kooxda kaliya ee naarta ka badbaadi doonta oo uu nabiyullaahi maxamed ku sheegay daa'ifatu mansuura isla markaana ay u dhaqmi doonaan sidii xaq ahayd ee uu islaamku ina faray. haddaba ila daawo muuqaalkeenan oo uu sheekh umar kaga warramayo waxa ay tahay daa'ifatu mansuura iyo xilliga ay soo bixi doonto iyo sifaadka ay leedahay ee ay kaga duwanaan doonto dhowrka kooxood ee naarta geli doona. muuqaalkeenan wuxuu inoo noqonayaa muuqaalada kooban ee aynu kaga nasanayno barnaamijkeena tusmada caalamka isla markaana aan idin socodsiinayo anigoo mukhtaar maxamed diriya mukhtaar shambar. daawade ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto channelka haddaad ku cusub tahayna aad subscribe ku qabato dawankana furato weliba wixii talo ah ee aad nagu soo kordhin karto fadlan nagu reeb commentiga hoose. mahadsanid. daawo muuqaalkeena. su-aashan waxay ku socotaa sheekh maxamed cabdi umal wuxuu leeyahay saa'ilkan sheekhana maxay tahay daa'ifada loo yaqaano mansuurada sifaadkeedana wax ma nooga sheegi kartaa ma saxiix baa in daa'ifa mansuura ay ka soo bixi doonto ardu shaam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. نبينا صلى الله عليه وسلم mar waxaa la weydiiyey markuu ka hadlay ummaddiisu inay qaybsami doonto oo 73 kooxood noqon doonto kulligeedna ay naarta gelayso ilaa mid mooye. middaasaa la weydiiyey tahay nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam hiya aljamaaca mar sidaasuu riwaayadu ku timid. mar kalena nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam waa dadka haysta aniyo saxaabadaydu waxaan maanta haysanno. firqa naajiya la yidhaahdaa. طaa'ifa almansuurana xadiidka mutawaatirkaa bay ku timid laa tasaalu fii ummatii طaa'ifatun mansuura. ummaddayda laga waayi maayo koox ilaahay amarkiisa u taagan diinka ilaahay u taagan oo adeegaysa nafteeda maalkeeda cilmigeeda ugu adeegaysa ilaa qiyaamadu ka timaado koox noocaasa ummadda laga waayi maayo. waa xadiid mutawaasir riwaayaadkiisa markii laysu geeyo saxaabo badanna laga wariyo. kooxdaasi yay tahay waa dadka ku socda manhajkii nebi maxamed ka tegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo uu asaaskiiyo gundhigu u yahay kitaabka ilaahay sunnada nebiga sal alla alay wasalam dariiqii saxaabada iyo salafka saalixa. waqti ay yimaadaanba dadka jidkaa haya ayaa waxaa la yidhaahdaa alfirqa annaajiya, waxaa la yidhaahdaa adaa'ifa almansuura, waxaa la yidhaahdaa ahlusunna waljamaaca, waxaa la yidhaahdaa yani muxuu ahaayey atbaacu salaf, waxaa la yidhahda asxaabu alxadiid. waa kelimaad aan kala fogayn macaanida hal qolaa loo wada isticmaalaa. ahlul athar baa la dhihi marmarka qaarkood. marka waa dadka jidka haya wey. alimaamu albukhaari, alimaamu axmed, cabdullaahi bn mubaarak a'immadii salafku xadiidkaa markay fasirayeen adaa'ifa almansuura waxay ku fasireen dadka xadiidka nebiga raacsan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. oo waxay leeyihiin haddaynan ahayn culimmada xadiidka iyo dadka xadiidka raacsan cid kale tahay oo ma garanayn. imaamu nawowi caleyh raxmatullahi markuu fasirayay wuxuu yidhi dawaa'ifta kala gedisan ee meelaha kala gedisan islaamka uga adeegaysa laakiin dariiqa saxsan haysa baa kulli daa'ifa almansuura soo gelay. caamada muslimiinta ahee dariiqaa ku raacsan culimmadaas ayaguna daa'ifa almansuuray soo galeen firqa naajiya maadaama ay dariiqaasi hayaan.
almuhim xilli ay yimaadaanba dadka tilmaamaha leh jidka haya ayaa magacyadaa iska leh. ilaahina tabaaraka wa tacaala haynaga mid dhigo. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran khayr aljazaa. xadiidka dhahaya yani ma jirtaa inay shaam ka soo bixi doonaan, jawaabtu waa haa. xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mid a ku asaxay in ay shaam daa'ifa almansuura ay jirto, waana xadiista tilmaamaysa akhiru zamaanka shaam inay noqon doonto meesha asal ahaan uu jihaadku ka kici doono, nasriga iyo guusha muslimiintu ka imaan doonto, dagaallo badan ka dhici doonaan. way jirtaa xadiidka riwaaya ka mid oo tilmaamaysa wahum fi shaam dhahays, wayna sugan tahay riwaayadaas. wallahu aclam.